wiil ayaa hilmaamay inuu xirto muraayadiisii gaarka ahayd. Cid kasta oo uu fiiriyo si dhaqso ah ayay u isu beddeshaa dhagax. Si uu dadka oo dhan u badbaadiyo. Wuxuu si dhaqso ah u geeyey dadka dhagaxaystay fasal. Kadib wuxuu galay qol madan si uu u qariyo. Si uusan u dhaawicin dad kale. Markaas wuxuu amaahday muraayad ka timid saaxiibkiis. Oo taagan daaqadda dibadda. Iyada oo uu adeegsanayo awooddiisa. Wuxuu isla markiiba istaafsaday muraayadaha gaarka ahaa ee gurigiisa ka hadhay. Hadda ma uusan ka walwalin dhaawaca dadka. Markuu socday. Si lama filaan ah ayuu arkay boodh ku saabsan bandhig sixir oo ka dhacaya iskuulka. Wuxuu ogaa in sixirku uusan ka bixi doonin sanduuqa sixirka. Markaasuu ku teleport gareeyay gudaha sanduuqa si uu u badbaadiyo. Laakiin sixirku ma uusan joogin halkaas. Wuxuu ku tegay duubid si uu dadka ugu qanciyo inuu samaynayo sixirka. Dhanka kale, kaaliyuhu hore ayuu u bilaabay inuu seefaha ku garaaco sanduuqa. Mid taasoo ku qasbaysa wiilka inuu ka fogaado seef kasta. Ma uusan ka bixi karin maxaa yeelay awooddiisu waxay ku jirtay Roldown. Markaas sanduuqa ayaa kor loo qaaday. Si lama filaan ah, hookii wuu furmay sanduuqa ayaa si toos ah u dhacay. Nasiib wanaag weli wuxuu lahaa awoodaha super si uu isu ilaaliyo. Laakiin dadweynuhu ma uusan ku farxin. Markaas kaaliyuhu wuxuu sanduuqa ku shiday dab. Aan ogeyn in wiilku gudaha ka barafay. Dhammaadka bandhiga. Kaaliyuhu wuxuu xitaa keenay carane weyn si uu u cadaadiyo sanduuqa. Laakiin markaas Roldown ku uu dhamaaday wiilku wuxuuna teleport gareeyay. Dhowr daqiiqo kadib sixirkii been abuurka ahaa ayaa sidoo kale ka soo muuqday hortooda.